hebel maanta markii gacan ka xaq daranaya ka shaqeysay Itoobiya qabsatay ayuu reer hebel noqon waay ilaa maanta hadii Hargeysa lagu xidhila waxaan la oranaa in reer hebel oo reer quraco reer qansaxo reer galoolka si ahoo si loo xidhayna kaga la oran la laakiin Itoobiya miyaanay reer hebelnimada ka shaqeyn ma ahadin dawladdu ka shaqeyn يعني تركيا حتى ما نشوف مركز الدولة اللي جمعته ما أنت الصومالي الدولة بما لها وحنا نقول على شو شقة استيعابنا وقانون ما قانون الدولة ركع يعني إذا الدولة بنا أنا شخصيا ما قانون إن يهين مضح أنا رك شقة سنة أنا قانون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وانا اسمك تجدون عليك جوجتا مركي يوتيوب channel كنا مركي كورس يوتيوب كسبوا قطعة هاي سبسكرايب لايك شير كومنتي عادي بدي ما اسمك تجدون عليك جوجتا مركي انت لقي مدعوة حكي هذا الموضوع خصوصا بريها بفنك خير كي ولا ودودي سوشيال ميديا حدن كحول إثيوبيا أين دوننا يعني وحي حقن كحينا إن سوق بنو إن إذا كنا عرفتين عندنا لو ذاك كنا حقت كحسان لو سوق بسان نقول وحنا كحينا إذا سوق بنو مركز إن أركت ذاك بين سمين النام مركز وحنا نقول كحينا إذا سوق بنو إن شاء الله بدنا كريد كنا حوارات كحسان كومنتي إن شاء الله بدنا كريد نقول ذاك دونتان مركز سولو هذا اللي كسولو هذا موضوع أو كهذا واخذ كيو سولو هذا اللي قاعد إن مركز تلاقي مع دو فنان خذ كيو وحنا كور هاي يمكن مدوي كسر دوين كحري هاي أدي سبابة فنان مركز جور يسوي حكيم تركي شو بترك ساقطي إن waxay Soomaalidu ma dhacay geertay kala sareen baa loo kala guraa fananka uu ka yimi sidoo ku yimi Afrika iyo sidoo ku noqdeen marka hore ka bilaabana marka awalinkii hore wuxuu ka yimi Turkey show ku soo qabtay Turkey isaga dhigay maslax baalka ku soo qabtay show iyo dadkii yani dhigjeedis la socday inuu dhigay maslax kala qayb galanaya programka markuu ka yimi Turkey wuxuu soo maray Addis Ababa oo wuxuu yimi Hargeysa wuxuu ka tagay Boorama heesa badan buu soo saaray marka wuxuu tagay haddana Addis Ababa ku noqday Addis Ababa markuu ku noqday fanaanka waxa lagu qabtay oo lagu haysta dadka qaar bisi buu qaadanayay qaar waxa lahayn gabadh bari jeclaabu cadar yar oo la ogeyn keeno kontrabaan buu hayo marka kontrabaanki ba cadarkii lagu kontrabaano meel baa lagu xareeyay qaar waxa lahayn inuu bari gabadh isku qabsadaan ba ku sii sugayay airportko xaggan ku xareeyay qaar waxa lahayn baasaboor Ethiopian yani marka qofku baxayo waxa lagu dhiftaa go home da yani qofku inuu tago soo noqdo lagu dhiftaa marka baasaboor bila go home uu sitay horta marka ugu horeysa mid baa jirta waxay tahay anigu waxaan qaadan karin u maleeyay in jirto baasaboor Ethiopian inuu meesh ku jirin sababtoo ah khadarkii wilgi Ethiopia kuma noolaanin baasaboor Ethiopian dadka lagu qaato wan ka warayna aadiyad baad tahay marka hore mustaqbal qaadato marka xigtayna interview marto marka horta meesha ha soo dhiganina inuu baasaboor Ethiopian sitay sababtoo ah baasaboor Ethiopian dadka Ethiopia ku dhashay intii doonaan joogeen baasaboor Ethiopian ilaa helan qaarkood qaadanin baasaboor Ethiopian si lagu qaato aadiyad baad tahay marka su'aashu waxay tahay anigu u malan ma shakhsiyan khadarkii inuu sitay baasaboor Ethiopian markii taas ka sii gudbin macaan laacaba boos soo dhigay Facebook marka uu leeyahay fanaanka Soomaaliyeed kaca fanaanka anu gurmano sanu soo deyn leeyna fargood galo okay horta waxaan u malanayaa post yaro Facebook la soo dhiga in aanu qof soo deynin haddana maanta dhanka ka Facebook galaan free hebelka soo guro anoo magac la xitaa madaxweynaha hado yani oo dhaqdhaqaaq sameeyno activity sameeyno u malan maayo inuu soo deyniyo fanaanka waxaan jeclaysan maadaama uu yahay nimaan la gudoomiye kooxda waa bari inuu sameeyo taga meesha oo يعني activity fara badan sameeyo oo dees u soo deyn la maadaama qof mas'uul wax lagu qoray maanta uu yahay qof mataliya hawladu waa bari magac laha uu yahay meesha uu maanta mataliyana meel ahayd meel magac la ahaan jirtay markii hore maadaama uu tahay meesha maanta jooga inay tahay meel ummadda Soomaaliyeed magac ku lahaan jirtay oo hawladii waa bari tahay inuu sameeyo oo taga isku day oo taga Addis Ababa hawsha inuu galo saas u wanaagsanaan leh maybe markii si kala u sii dhigna haduu ifan jira baasaboorka Ethiopianka anigu u malan ma inuu qaatay laakiin haduu jiro shuruuc baa ka jirta qofku baasaboor Ethiopian duu sito yani bila tigira waxa jirta in qofka haduu meesha uu ka qaato marka tigirka laga waayo haduu meesha ka qaatay yani cadeymin keen waayo horta mid baa jirta marka doonaysa mustawaqad doosad ku qaadatid baasaboor waxa lagu weydiinay qofka magaalada ugu caansan waxa uu lagu weydiinay inta dad gar weydo la maada wala sameeyaa labada maada la sameeyaa waxa weeyaan in baasaboorka laga kala in mustawaqad laga kala jeexo iyo dhinac laga jaro taas aad jirtay marka awalanka ugu horeeya la qaadanayo baasaboorka كل قف كهدي اللي قبض باسبور كيو يعني مش كقتي وحش شيء واي خاصة بحرية هذا كحول مركز دموع شيء جالسة خذ كيو يركز سدوا يجرح عن كل عسكر شيء يعني توصل حركة أمر المعيدين التاجو هايسو حتى واحد أنا سؤال شكل شيء تاجنا واحد هاي خذ كيو ميتوبيان بقى من أنتوبيا كسو تشدر ديان كسو عليك كسو تشدر توبيا من أنتو ديان كدبوب تكسو تشدا من كسو تشدر ديان كأرمضة من الناس الصومالية هاي نقصو كوري
dee in loo gurmado loo kaco loo hadlo oo la isku day si loo soo deyn la dawladdu ka hadasho maadaama muwaadin Soomaaliyeed yahay dadkeeni ma yaal inagu shaqaysanayo inagoo madaxdeen si lacagta loo qaato ma yaqaan ma qoomba si muwaadiniinta xaqooda loogu soo reemay yaqaan miya waxa wanaagsan in dawladdu istaxalujiso marka laga yimaado mas'uuliyiinta xubalada waa bari macna la cokal marka laga yimaado waxa wanaagsan dawladdu inay xilqaanto oo ay samayso inay soo disay u soo deynayeen isku daydo ayaa wanaagsan maadaama qof muwaadin Soomaali xaq aniga halkan fadhiya xaq waan dawladda ku leeyahay marka maanta wax soo gaaraan cidda laga xisaabtamay waa dawladda maanta haddana halkan joogo wax ka geysto qof wax yeelo markii waxaan ugu in dawladda Yemen soo la xirayade hal la xiro si xorriyadeeda marka cadawgu haystana si loo soo deyn lahayn isku day wanaagsan khasbiyan waayo muwaadin baanay markaan dambiga geysta waxa markii wada la Yemen la xiraayo marka tan soo deyntina dawladdu sameysay wax ku qasbantaa weeye hana ka hadlan madaxda Soomaaliyeed iyo dadka magaca kula bulshada inkastoo dadka qaar ka hadleen laakiin dadka saameynta dawladda wax lagu qoray dawladda ku jira in ka hadlaan wanaagsan ilaa aan qof mas'uul xariga muwaadinka Soomaaliyeed ka hadlay anu maanta fanaan ku sheegmay qadarkii sababtoo marka fanaanimada laga yimaado waa muwaadin Soomaaliyeed marka madaxda ugu sareysa ilaa kugu hooseeya xaq bay ku leeyihiin ka hadlaan Ethiopia dad kama duwana dawladaha kale ee warigeeda hal boqof muwaadin lagu xidhi jiray oo Soomaaliya oo walba laga soo deyn jiray maanta hadii qadarkii lagu xidho Hargeysa hadii lagu xidho Boosaaso hadii lagu xidho Garowe iyo hadii lagu xidho Muqdisho waxaan ku meel qaylada iyo waxaan ku reehebel kala kala istaajilin waayo qadarkii markii lagu xidhay Addis Ababa reehebel noqon waay markii kale Afrika markii kale Soomaaliya joogo reehebel maanta markii gacan ka xaq daranaya ka shaqeysay Ethiopia qabsatay ayuu reehebel noqon waay ilaa maanta hadii Hargeysa lagu xidhay la waxaan la oranayaa in reehebel oo reer quraco reer qansaxo reer galolka si aho si loo xidhay kaga la oran la laakiin Ethiopia yani reebelnimada ka shaqeyn ma ahadin dawladdu ka shaqeyn yani tulkiisa xitaa meel joogin marka dawladda laga yimaado maanta Soomaaliya dawladdu ma lahayn waxaan ku uri caloosho shaqaystayaal baan ugu qaano ma qaano dawladda raka yani ila dawladda baan anigu shakhsiyan ma qaano inay yihiin madax aan rag shaqaysanayaan oo qaana markii taalo way meel waa xitaa reebelka xitaa meel way tii ay markaan joognaba PK baan ugu ereeyay waxaan ku risaa adduunka dhoo qabsolay PK baa qarxiiba shabeelay soo ma jirin taasoo soo damqasho in Soomaalida iyo ummadeena ka damqana hadal xumadii PK u jiri soo ma ahayn maanta qadarkeen maanu kuween maanta u weynee markii ay qarax kuma dheen oo kale meel la mid ahayn isagu muwaadin Soomaaliyeed ma ahayn iyaguna kuwaas Allah u naxariisto waalidiintana Ilaahay samriye mana ka siiyay kuwaas isaguna la mid yahay si kastaba ha noqoto waxaan ku talin lahaa madaxda iyo dadka wax garadka iyo uqaash iyo waayeelka cid wax laga qoray cidda mas'uuliyiinta fanaaniinta Soomaaliyeed ka nool oo maalmahan aan la'aan wax dhamayn karayo nin boos Facebook soo qoray xama dhamayn karayo haloo kaco arrinkan meesha ku jira baasaboor Ethiopia meesha ku jirana shakhsiyan anigu idinku taaqotan ma cadin karayo umaran maayo inuu jiro sababtoo baasaboorka Ethiopia dhaay lagu ma qaato qof in badan dawladda ku dhaqnaaba qaata oo waliba magaalooyinka lagu qaata anigu aan ka warhayo waxay tahay magaalada madax dawlad deegaan inaad ka soo jeedo oo dhalato ka taqaano aan bay tahay laba magaaloon baa markad ka qaata mustawaqaha aan tarfiyaan marin oo magaalada Addis Ababa iyo magaalada Diradhaba labada magaalo hadaad ka seeto musawaqa waxa tarfiye lagu weydiin maayo waa labada magaalo madaxdii magaalo ku xigeenta laakiin inta kordhaha dadka soo jeedo waa lagu weydiinaya tii qadarkii inuu ka horeyna inaan ahayn shaqay shuqul dooro kala deegaanka inaan ahayn aad iyo aad ma mahadsantiin walaalkeen aan u ducayno in Ilaahay ka soo sabata saaray yani gacanta cadawga waxaan leeyahay guys idinku la ducadu waa xaqiina anaguna xaqan insha Allah wala hadmayno waa hadlayna hadalkaygu saameyn yeelanayo Ilaahu mid tawaqaf daawadaan xitaa sababtoo anna markastaba waxa naga hadlaynaa waa Soomaalinimada iyo dhiigga Soomaalinimo iyo wanaagan ummadda la jecelahay marka waxa leeyahay idinku la ducada fariid xaq hoose ku soo qoray inuu waxaan qaban karnaa wax kale qaban karnaa ma jirid haddad maanta malaha anagana dooran leeyahay yani haddad malaha way isku deelayeen Soomaa marka qofka si saas u isleeyay aniga shakhsiyan maaha hadii aan daawanayo waxa isla maanta haddad madaxweynaha Soomaaliya ahaan lahayd ama ra'iisul wasaare ahaan lahayd maanta waad soo deelayeen qadarkeen iyo inta kale la mid ka dhibanaaba وصادق سلادي أنا صاص ما نسلادي وحالي وإنت مقالك وحبيبك كل منه والسلام عليكم ورحمة الله. Please subscribe channel Kusobir channel ka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you. Please subscribe channel Kusobir channel ka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you. Please subscribe channel Kusobir channel ka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you. Please subscribe channel Kusobir channel ka
like tana nagu dhiirigeli share garee